doorashooyinkii 1967 iyo 1969 ayaa si weyn loogu dhaliilay maamuladii rayidka ahaa inay xakamayn kari waayeen musuqmaasuqii siyaasadeed iyo maamul xumada kale. musuqmaasuqa baahay waxa uu ka caraysiiyey dadweynaha oo doonaya isbeddel. maxamed cabdi yuusuf waxa uu hore u soo noqday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. muddo dheerna waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay dawladdii hore. waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta u soo joogtay xilligii ay Soomaaliya xorriyadda qaadanaysay. dawladdii lixdankii waxay labadii gobol oo midna Talyaani diiwaansan jiray midna Ingiriis oo midoobay oo xorriyaddii keenay. marka waxay keeneen midnimo iyo gobonnimo mabda' fiicanna way keeneen, laakiin ficilkii iyo waxay qabanaysay 9 sano oo ka dambeeyay midnimada iyo gobonnimada qaladaad fara badan ciidan ka badan ayaa dalka ka dhacay. waxay qabteen waajibkay ugu dambeyntiina dhibaatada weyn waxay ahayd dagaal baankii doorashadii 69 oo shubasho ku dhacday oo dadkii doorteen inta badan aan soo noqonin, meel balleegadu kusoo shubatay. 123 xildhibaan oo baarlamaanka soo galeen Cabdisaaq Xaaji Xuseen Allah naxariistay oo ahaa mataqaanay xisbigii dabka ay bixiyeen, laakiin si dimuqraadi baarti ahaa sharigiis ayaa ka soo galay. 122 kale kulligeed ay ahayd inta badan lagu soo shubto shacbigu soo dooran. arrintaasna marka waxay sii kordhisay qaladaadkii jiray iyo tabashadii faraha badnay ee dadka ku sii dejisay. dhibaato badanna way keentay. ugu dambeyntiina waxay galaafatay madaxweynihii Allah naxariistay Cabdirashiid Cali Shumaake oo la dilay 15 Oktoobar 1969 laascaanood lagu dilay. inkastoo afgambigu uu dhacay 21 Oktoobar 1969 haddana damaca madaxda ciidamadu waxa uu ahaa mid muddo soo jiitamayay. Professor Cali Jimcaale waxa uu ka mid yahay qorayaasha taariikhda Soomaalida kuwa ugu horeeya. si dhowna waxa uu la soo shaqeeyay madaxweynihii hore Maxamed Siyaad Barre oo uu turjumay buuggiisa. marna intaad la sheekaysanaysay maskaxdiisa ma weydiisay sababtii afgambiga waddanka uga sameeyay, marna ma ku sharaxay? laba waxba afkiisan ka hayaa, ma ogtahay? Allah u naxariistay. waa midoo horta 67 yaan filayaa iyo 66 waxay ahayd ma hubo, yaa wuxuu tagay Itaaliya. marka waxa waxbarasho u jooga Allah u naxariistay Cabdiraxmaan Jaamac Barre. Cabdiraxmaan wuxuu ku yiri sidoo noo sheegay madaxweynuhu runtii aan afkiisa uga hayo, wuxuu yiri waxaan ku iri warnahaw isdiyaari, waxa imaanaysa dawlad ummadda u shaqaysa, kuwaanu meesha wax ka qaadayna. waa mid horta. tan labaad waxay ahayd hadal uu habeen igu yiri, wuxuu yiri baahi cusub la siyaad oo markaasi duutaati ah qareenna ah yaan wuxuu yiri waxaan iska soo raacnay Baydhabo oo diyaarad aan isla soo raacnay. waxaan ku yiri musuqmaasuqan waa dhamaanaya. nin dhalinyaro ah tahay oo dhalinyaro ah oo aqoon leh, marka waxaan ka codsanayaa inaadan ku biirin musuqmaasuqa hadda socda. marka labadaasaad waxaad ka arkaysaa in uu runtii isu diyaarinayay ilaa iyo xadba. waa sida anigu islaayahay, ma ogtahay? oo Cabdullaahina weli waa nool yahan filayaa, maxaa yeelay markii madaxweynuhu noo sheegay aniga iyo guddiga ayaan waxaan tagnay beledweyne oo markaasi Cabdullaahi yaa joogay isagoo wasiir ah dawladda Maxamed Siyaad ka. isla su'aashaasaan weydiiyey. Cabdullaahi wuxuu yiri wallahi waa runtiis, diyaaradan isla soo raacnay, duutaatiyan ahaa, saasuuna igu yiri. subaxnimadii ay ciidanku qabsadeen waxay dadweynaha u sheegeen isbeddelka la sameeyay, waxayna sheegeen inuu yahay mid dalka looga badbaadinayo musuqmaasuqa iyo qabyaaladda. waxay isla maalintaasi sharaxeen siyaasadooda arrimaha gudaha iyo tan dibadda. galinkii dambe ee maalintaasi waxaa lagu dhawaaqay samaynta golihii sare ee kacaanka oo ka koobnaa 25 xubnood. golahaasina waxaa magacooda ku hadlay taliyihii ciidamada Generaal Maxamed Siyaad Barre. milatarigu waxay qarameeyeen shirkadihii iyo hay'ado kale oo dhaqaale oo kala duwan oo ay lahaayeen shisheeyuhu. waxa kale oo ay ku dhawaaqeen nidaam ay ugu magac dareen hanti wadaagga cilmiga ku dhisan. Soomaaliyana waxay ugu yeedheen waddan hanti wadaag ah. mabda'a hanti wadaagga kacaanka ku dhisan miyuu aaminsanaa mise wax dadka uun lagu jeedinayo ama dadka wax soo jiidasho leh inuu la yimaado uun bay ahayd markuu kacaan ku dhashay? dhinac horta haddaad fiiriso waxay ahayd marka aad fiiriso warqadii caddeed golihii sare ee kacaanku soo saareen 21 waa 6 maalmood kadib moogta markii inqilaabku dhacay
warqadda markaad fiiriso waxyaabihii lagu soo saaray yani first charterka wixii ay lahaayeen of the revolution, warqadaasu waxaad arkaysaa in ilaa iyo xad iyaga oo aan sheegayn hanti wadaag ahaana haddana in muyuulku iyo tendensigu inuu halkaa jiray moogtahay. dhinaca kaleeto waxaan xusuustaa, waxaan jeclaan lahaa in mar kasta la kala saaro wixii kaftan ah oo qofka kugu yeeray madaxweynahoo kale iyo waxa aad arkayso oo siyaasadii saameynaya oo ficil ahaan loo sameeyey. laakiin runtii waxaan xusuustaa habeen annaga oo meeshaa wada fadhina geedka hoostiisa ee madaxtooyada villa Soomaaliya yaa isagoo qoslaya iyo wuxuu yiri companion dhihi jiray, wuxuu yiri dad baa waxay u haystaan inaan hanti wadaag ahay. anigu ma hayo, anigu waxaan ahay wixii ummadan lagu wanaajin karo anna kursiga ugu hayn kara. marka waxaan isleeyahay jawaabtaadu halkaasay ka soo baxaysaa. laakiin hadda waa qoslaayo ogow, isagoo qoslaayo ma ogta marka inuu kaftamaayo iyo runtii ma sahlana. waa gartay. marka kaftankiisa markuu kaftamayo iyo markuu usan kaftamayn dhabta ka tahay ma la kala yaqaanay? waa mararka qaarkood waa kala aqoonaysay, laakiin dhibaatada waxay ahayd runtii sida qof kastoo dad badan oo madaxihi maxamed siyaad wuxuu ahaa real qof complex ah moogtahay oo yani tanaaqudaad badanna wata sida madaxda adduunka oo kaleeto. marka mar waxaad arkaysaa isagoo kaftamaya haddana raba inuu adiga wax ku maqashiyo moogtahay. bishii November 1976 madaxweynihii Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre waxa uu saxeexay inay ciidanku galaan dhulkii Soomaali galbeed. waxay Soomaaliya dagaalkaasi ku jirtay tan iyo horaantii 1978 markaas oo ciidamada Soomaaliya dib looga soo riixay dhulkii ay ka qabsadeen ciidamada Itoobiya. siyaasiga Maxamed Cabdi Yuusuf waxa uu galka baarista u sheegay in dagaalkaasi uu ahaa qaladkii ugu weynaa ee xukuumadda Siyaad Barre ay samayso. waxa weeye horta wax kasta qof kastoo biniaadan qalad waa samaynaya, laakiin qaladka ugu weyn waxuu dhacay dagaalkii 77 Magsiin la galay buu dhacay. dagaal wadaniya oo xaq u ahaa oo kamid ah shanta Soomaaliyeed hal xornimo beesha ku dhisnaa ayaa dagaal la galay. dagaalkaasna wuxuu noqday dagaal lagu degdegay oo loo bisnayn markaa iyada. sababtuna waxa weeye annaga kaliya ma aynan meel garin karin arrinta iyada. for example waxaan kuu sheegayaa 1976 intaan dagaalka lagu dhawaaqin Maxamed Siyaad rag buu usoo yeeray badan oo rag badan isugu jira. warqadaha lagu daafay xamar laleeyahay Maxamed Siyaad Barre ruushku ka baqahayaaye inuu dalka xoreeyo ma rabo. rag loo yeeray baan kamid ah jawharba markaa jawhar la iga yeeray oon madax ka ahaa. kolkaas ayaa maxaa yiri wasaasaa la yeelay ka hadlanayo mataqaana arrintaas kala ka bixiyay. waa la hadlay dadka intiisa badan oo waxay yidhaaheen dagaalka la galo talaayaasoo dadka dhan waa kutirsanaa dalka la xaqay. maanta Itoobiya ciidankeena kaana ka qabara, laakiin waxaa lagu tala gelin Itoobiya inay ku tiirsan tahay, annagu sidaan ku tiirsannahay. for example gobonnimo doonka waxa taageeraya dalkanti wadaagga dalkanti gobolka gobonnimo waa ka soo jeeda, laakiin dalkanti wadaagga waxa ku shaqeynaya teoriyadii Lenin ama mabdii Lenin oo ah saddexda quwadood oo waqtiga xaadirka jooga oo xulufada oo ka soo horjeeda imperialiyadda. kow dalkanti wadaagga, labo shaqaale weynaha adduunka, saddex dhaqdhaqaaqyada gobondoonka. annagu marka taliikada iyo diyaaraadka iyo madaafiicda iyo waxaan wadano iyo hubka iyo waxaan wadanada waxaan ku tiirsanay Soviet Union. Soviet Union waxay Itoobiya ka rabtay dalkanti wadaagga inay ka dhigto. marka Itoobiya marka wax ku tiirsanay lambar 1 bay ku jirta, annaguna lambar 3 ku jirno oo gobondoona. sidaa daraaddeed markaan dagaalka galay kadib inaan joojino annagana hubkii naga joojiyey, ayagana waa hubeeyey wastobaad iyo naasana marka la yidhahdo kuba iyo kulli waa keenay iyaga buu keenay. ciidamadii waa lasoo jebshay. adduunka reer galbeedka oona gobonnimo ma taageeraan, shufta noo yaqaaneen. Itoobiya nagala jireen dadaan oo nama hubeyn wax nama qabanin. dagaalkii ciidanka soo jira dalku soo galay, dalkii markuu kusoo laabtay ciidamadii waa kala fidhadeen. shabaabada qabaayga la aasaasay markaa. shabaabada qabaayga la aasaasay kulli Itoobiya aaday oo la soo softay la soo duulay qarankiisa wax ka digay.
oo iyada calisnad ayay horseedka ahaayeen. marka sidaas ayaa qaladka weyn ku dhacay, dagaalkaa la galay, dagaal xaq waa laakiin lagu degdegay oo laga fiidsan, ma garan wadada halkaasi ka tahay. Professor Cali Jimcaale waxa uu isbarbardhiga suugaanta ka dhigaa kulliyadda Queen's College ee jaamacadda City University ee magaalada New York. waxay ugu horreyn isbarteen Maxamed Siyaad Barre 1973 xilli uu ku jiray dugsiga Xalane. 6 sano kadibna waxa uu si rasmi ah u bilaabay inuu la shaqeeyo madaxweyne Maxamed Siyaad Barre. xilligaasi waxaa durba waddanka ka jiray jabhado hubaysan oo mucaarad ah, kuwaasi oo saldhigyo ku lahaa dalka Itoobiya. marna ma kuu sheego ma kuu qirtay qaladaadka uu sameeyey iyo kuwii ugu waaweynaa kuway ahayn? runtii qaldaad uu sheegay oo uu si cad u sheegay runtii horta ma jirin, laakiin waxyaabaha uu ka hadli jiraa waxay ahayd mar kasta. masalan wuxuu ku leeyahay war isagoo wasiirada iyo ka hadlaaya ma ogtahay, wuxuu ku leeyahay war kuwii aan magacawnay laftoodii yaan xilkoodii ka soo baxayn, ma ogtahay. misaal wuxuu habeen yaa waxaan xasuustaa wuxuu yidhi wuxuu ka soo noqday baaritaan uu ku tegay dekeda xamar berigaasi. marka magaalada waxaa jira beriga sokorwa, soomaalidana waatan sokorta aad u qaadata ma ogtahay isticmaasha. meeshuu ka soo noqday wuxuu soo arkay sokor oo roob intuu ku da-ay halkaa ku khasaartay, maogta lagu khasaaray oo eber noqotay. marka wuxuu yidhi war bal fiiri, magaaladiina waa sokor la-aan, halkaasuna saasay sokorti ay ugu baaba'day. marka dadkii aan xilka u dhiibay yaa ka mas-uulahu yiri, ma ogtahay. laakiin isagu ma dhihin anaa ka mas-uul, hadda ogow iyagaa ka mas-uulahu yiri, ma ogtahay. kadib soo bixitaankii jabhadaha, musuqmaasuqii baahay iyo dagaaladii hubaysnaa oo kusii xoogaystay gudaha waddanka, waxaa dowladdii Maxamed Siyaad Barre ay ka dhigtay mid daciif ah. bishii Janaayo 1991 dowladdaasi waa ay burburtay kadib markii ay magaalooyin waaweyn oo waddanka ah oo ay ku jirto caasimadda Muqdisho ay qabsadeen xoogag mucaarad ah. waxaa khubaro siyaasiyiin iyo mujtamac kale oo Soomaaliyeedba ay ku tilmaameen xukuumadda Maxamed Siyaad Barre inay ahayd mid kali talis ah, macangag ah, dhiig daadisay, isla markaana aysan waddanka u diyaarin deganaansho siyaasadeed. Maxamed Cabdi Yuusuf waxa uu xukuumaddaasi ka soo qabtay xilal kala duwan sida wasiirka howlaha guud, ciyaaraha, isgaarsiinta iyo boostada iyo xilal kale. isagoo shilin haysan 22 sano madaxweynaha dalka ka baxay. kuwa hadda jooga marka uu joogana maayin doolar intay dhacaan dhisanaya wax walba samaynayana dadkan qabyaalada isugu diidinaya maxay wax ka sheegay oo rabo dambiga dalka ka galay khayaaladii inay jiskusi ka sameeyaan. marka waxa weeye taariikhdu ayada iskor doonta tan la xaqiri doono wax ka imaan doono taariikhda maxalka waa ninka taariikhda soo nooleeyay oo la baabashay yaa kaaladii Axmed Gurey buu dhisay, kii Darawis buu dhisay, kii Dhagaxtuur buu dhisay, kii Saddex Toonka Aswal buu dhisay, kii Xawsa ku dhisay, dalkiisa soo buu dhisay. waxa la wixii gobonnimo doon u dagaalamay oo dhintay biladii siiyay ku dawlad Aswal aasay biladii siiyay aabay Dhagaxtuur lagu dilay biladii aabay ay siiyay maxay bay xireen. dawladii ku horeysay shahaadada hal qof mas'uul intii boqolaal qof ama kumanaan qof oo dhintay ama la dhaawacay ama la xiray oo dalka u soo halgamay hal shahaadada qof ay siiyaan mal. marka maxay taariikhdu soo nooleeyay ummadda waxay ahayd oo ay sameeyay. marka waxa la dagaalama ku taariikhda duuga iyo isticmaalka la taqnaawiyo ama wali isticmaalka dadka iyo qabyaaladii qowmiyadda aaminsan wax garanayay. haddaba su'aalaha isweydiinta leh ayaa ah 30 sano kadib markii xilka laga tuuray Maxamed Siyaad Barre maxaa ugu wacan inay Soomaaliya degi weydo? sidoo kale 50 sano kadib markii xukunka uu qabtay militarigu wax miyaa laga saari karaa dhibaatooyinka weli ka jira Soomaaliya? Professor Cabdi Ismaaciil Samatar ayaa qodobkaasi sharaxaya. waxa weeyaan ta ugu horeysa Haarunow waxaan lagu leeyahay wadaninimada ama af Ingiriiska lagu yiraahdo citizenship. Soomaalidu waxay u haystaa wadanigu hadda Soomaalidu ka hadashay inaad wadani tahay. tuugwana de xaq buu leeyahay in wadani yahay, laakiin uma dhaqmo sidii wadaniga. dadka laynaya ko dumarka kursanaya uma dhaqmayaan wadaninimada sideedii. wadanimada marka laguma dhashay waa la bartaa marka labaad. marka waxa imanaya anigu waxaan xasuusanahay maalin anigoo 2 nin oo askar la socda xamar oo Jawhar baan u soconaa. waa markay soo dumasay waaye ayaa ragii askarta saraakiil sare ahaa ayaa abaaray reero Soomaaliyeed oo bari iyo waqooyi degan. marka intan sidaa u dhageystay baan ku yiri oo kaalaya ma waxay ku soo dhuratay
in dad dhan la kala reebi waayo oo calaamad lagu dhufto. marka haddaad reer hebel tahay waxa weeyaan abtirsiintaada ayaa sheegaysa siyaasadaadu waxay tahay. waa cunsuriyadda adduunka ugu weyn. taas ayaan isleehay raadkay kaga tagtay Soomaali waa tamaanta joogta ee noqotay inaan la oran war yaa mabda wadaaga Soomaalinimo yaa wadaaga islaamnimo yaa wadaaga la leeyahay reeraha loo kala fadhiisto reeruha soo doortaan qofka masilaya. marka waxa weeyaan kii ugu xumaa reerka iyo kii ugu wanaagsanaa reerka ayaa la simayaa. marka taasina waxay keenaysaa inay adkaato wadaninimo iyo dawladnimo la ixtiraamayo inay dib soo noqoto walaal. bishii Janaayo 1995 Maxamed Siyaad Barre waxa uu ku geeriyooday magaalada Lagos ee dalka Nigeria, halkaasi oo masaafuris ugu noolaa tan iyo intii xilka laga tuuray. Professor Cali Jimcaale oo cilmiga suugaanta ka dhiga kulliyadda Queen's ee jaamacadda City University magaalada New York waxa uu sidoo kale ahaa qoraaga taariikhda Maxamed Siyaad Barre. waxa aan weydiiyey sida ay taariikhda u xusi doonto madaxweynihii hore Maxamed Siyaad Barre. kulley anigu waxaan isleeyahay dhibaatooyin badan oo dalka ka dhacay isagu mas'uul ku ah. dhibaatooyin badan oo runtii xataa haddii adigu samayn waxa sameeyay ciddii aad u magacaawday in ay maxay hayto wadanka ka arrimiso. dhinaca kale waxaan isleeyahay taariikhdu runtii waxay xusi doontaa marka